soo dhawaad saaxiibayaal waxaan kula wadaagayaa qaab fudud oo lacag ku samayn kartid lacag adiga dhan ilaa iyo $50 vat ilaa 50 ilaa iyo $100 iska dheh si fudud aad ku samayn kartid insha Allah muuqaalkan kula wadaagi doonaa dadka hadda meesha ku jiro adiga oo kula mid sumidaad tihiin bini'aadanaad tihiin lacag ay sameynayaan waa aragtaa Soomaa intaas qof ku jirto sawjidan haddii aan ku macneeyo ku fahansiiyo linkiisa hoos ayaan ku dhigi doonaa laba qaab ayaa lacag loo sameeyaa qaab wasbin iyo qaabkan u jeedaan lacagta oo price-ka ku xusan tahay waa galaysaa su'aalo lagu weydiin doona su'aalaha ka jawaabtan su'aalaha waxay noqon doonaan waxay tahay tusaale inta yani soo flow galay oo kala page-keena daawo oo kala sidaas oo kala waa su'aalaha ku sheegay okay hadda haddii aan ku macneeyo tusaale ahaan oo ku tuso intaan hadda waa lacag really ah oo qof soo geliyay oo raba in promotion loo sameeyo sababtoo ah lacagtani waxa ka faa'iideysanaya waa qof adig kula mid ah oo kala haddii aan ku tuso tusaale ahaan midaan oo kale oo 15,000 oo qof ayaa ku jirto sidee loo qaadan doonaa 15,000kaas qof ma qaadan doonaan si baa loo qaadan doonaa shuruucyo u dhagsan shuruucyadaas oo inay ka faa'iideystaa hal maalin socon doona one day waa sawjid one day oo kaliya ayuu socon doonaa sidaas ugu faa'iideysanay marka waxa lagu leeyahay qofka ugu horeeya ee kaalinta kuwaad ku soo baxo soo wuxuu heli doonaa $100 ayaa la siin doonaa qofka labaad ilaa iyo afraad u soo baxana waxa la siin doonaa $50 ayaa la siin doonaa 5 ilaa iyo 34 ilaa kaalinta 34 qofiga u dambeeya 5 ayuu heli doonaa waa 5 ka bilaab ilaa iyo 34 inta u dhaxayso qofkii gala wuu heli doonaa $5 ayuu heli doonaa tastiyada meeshaan yaalan aad bay u fududiin waa labadan tasti oo binaadii doontaa John ayaa dhigi doontaa ka bacdin asiga ayaa start dhihi doono oo wuxuu jeen garan doonaa kaalinta aad gashay ringiga aad gashay ringiga waa kordhi kartaa kaliya waxay ku xiran tahay asxaabtada inaad u shirkirisid oo kaliya okay midda ka soo tag wuxuu socon doonaa one day waaye hal maal ayuu socon doonaa oo kaliya 15 qof ayaa ku jirto 15 qof waa ka hormari kartaa kaliya maxaa sameynaya oo kaliya waxaa sameynaysaa buttonka ayaa taaban doontaa buttonka marka aad taabato ka bacdi waa ka soo laabanaysaa ka bacdi waxa la tig soo hadda waan ka soo laabtay start dhigi doonaa start markaan dhaho okay start dhahay waa ka soo laabanaa ka bacdi waxa la tig isar soo xoogaa uu diidan yahay waxa cilad baa jirta oo maleena soo laakiin waxa laga yaabaa tan oo kale waxa dhigi doontaa John markaa dhahdo oo kale tig ayaa saami doonto tan kale waxa dhigi doontaa start teamka daadid soo okay dib malahan soo ku celinaysaa okay mid kale tijaabin doonaa insha Allah soo kaasi kan dhankan aad ka jirta okay haddii aan mid kale aan ku baroobayo $78 oo kale ku baroobayn doonaa 78 qof ugu horeeyo wuxuu qaadan doonaa 36 dhankiisa wuxuu qaadan doonaa waxa weeye $26 qof uu sii xirno wuxuu qaadan $16 waxaa sameyn doontaa waxay tahay kana taabanay John adhe kana taabanay waxaa dhigi doontaa John adhi doontaa oo ku soo laabanay tig ayaa ku saarmayso haddana ka kale waxaa dhigi doontaa John marka dhahdo tiga ku saarmi doonto ka bacdina waxaa dhihi doontaa start sawjidan hadda kaliya waxaa laga baahan yahay sakaarinta kuwaad u gala waxaa laga baahan yahay waxay tahay inaad dadka asxaabtida u shirkaysto waxaa lagu leeyahay sa u guuleysid 10 qof ilaa iyo adi inta ka gaartid waaye u share gareey hadda waxaa ku jira kaalinta 2433 ayaan ku jiraa haddii amaanta asxaabtida u diro 10 qof oo kala u diro waxaa laga yaabaa kaalmaha hore 5 iyo 6 inaan soo galo 4 iyo 3 fahanti marka waxaa laga rabaa inaad ka faa'iideyso asxaabtaada u share fahanti aadiyad sidoo kale waxaan yani tusaale haddii lacagta aad samaysid oo kale challenge waxa fiirinaysaa intuu soconayo soo marka meesha tagtid oo kale oo lacagtaada ku soo gasho intee ka arkay marka waxaad tagi doontaa qaybtan ay ku qoran tahay mi ay ku qoran tahay tagi doontaa midaas aan ku tusay aad tagaysaa marka aad tagtid lacagta kugu jirto inta ku arki doontaa ana hadda waxaa sameeyay $2
waxaa sameeyey eber dhibic 53 waa 53 senti ayaa hadda igu jirto. sidee ula bixi kartaa marka? inteese ka feeri kartaa kuwa aan ka qayb qaatay iyo kuwa aan guuldareystay? waxaa ka feeri doontaa qaybahan ujeeda hadda qaybaha asugoyo, qaybaha badan asugoyo waa qaybahan badan asugoyo waa kan qaybtan iyo qaybtan iyo qaybtan iyo qaybtan sawjidaan kuwan ma guuleysan sawjidaan aan wana ay qoran hadii aan guuleysan lahaa lacag fiican ayaan heli lahaa. okay marka sidee lacagtaas kula baxay marka? qaybtan ujeeda withdrawal ay ku qoran tahay waa aragtaan aan umaleynaa withdrawal ayaa ku qoran meesha ayaa taabanaysaa. marka aad taabatid lacagta kugu jirto ayuu ku saari doonaa wuxuu ku leeyahay lacagta aad ka samaysay waa 53. maxaa rabtaa? waxaan leeyahay withdrawal lacag inaan la baxaa rabaa. lacagta wuxuu leeyahay lacagta nooca waa USDT waxaa leeyahay Tron TRC 20. okay wuxuu leeyahay lacagta ugu yar kala bixi kartid waa $5 waa maximum waxa 100 waaye. ujeedaan limitkan xadidka ugu dambeeya waa 300 okay maxaa laga jaran doonaa v laga jaran doono waa 1% waa wax aad iskaga yar waa fahanteen. waxaan rajeynayaa inaad fahanteen. sidoo kale waxaa jirto qaab kale oo lacag ugu sameyn kartid. qaabkan kalena horaa kugu soo wadaagay waa qaybtan ujeedaan spin ayaa tuuran doontaa adigii nasiibkaaga adigii gacantaada fahad adigii gacantaada $1 $3 $2 midkii ay heshid adigii nasiibkaaga ku xirantaa fahad. hase ujeedaan qof ayaa waxa uu la baxayaa 1000 iyo xoolo baxayaa 1300 sawjidaan qofka kale 700 ayuu la baxayaa. marka adiga xakaaraya marka waxaan aniga hadda waxaa ii dhiman oo kaliya 90 in lacagta la baxo waxaa ii dhiman oo kaliya 97 senti ayaa ii dhiman. aad iyo aad waxaan rajeynayaa muuqaalka inaan ku wadaagay linkigiisa hoos ayaan ku dhigi doono insha Allah. haddii aad rabtaan challenge-ga inaan ka qayb galno linkiga Telegram-ka hoos idiin soo dhigi doonaa insha Allah. ka faa'iideysta aadan u mahadsantihiin saaxiibayaal.